السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ملك السؤال الدون كتوكتان لما وحكوا سلامتين صلاة الإسلام السلام عليكم وحن إذن رجيني دماتين باش في برواقو يسوك العافمات قب وحن إذن كور بحن دونا حالة دي الله سعانوت سدوك وحن إذن سوق قادن دونا قدوميه فقشني إن أري عدي أو هادلي مادام أو هاد الدقالك إنو قرحة أي وحير كدي منتهاي أما الدقالك إنو قرحة آن مقرنسة دقيقات كستر لفلان كرو si uu u gaarsiiyo dadka dee qabiilka faqashina ku abtirsadaan haddii ay noqoto hawiye hadday dirtaa kala noqoto iyo haddii ay soomaali noqotoba si uu u gaarsiiyo qabiilka la idhaha faqashini inuu dagaalka ku jiro inaanu dagaalka ku jirin meesha uu taagan yahay cidda ay taabacsan yihiin ayuu u hadlay ninkani waayahay ninkani waa nin guddoomiye ah waa nin markay noqoto ari caddeeye mulkiilayaasha wax laga weydiiyo balaynu qabiilka faqashin leeraa dagaalka laascaanood ka socda meeshuu ka istaagay balaynu eegne ila daawada waxaan kaa codsanaya muuqaalka laygare sheergare committeega wixii rayaa ku reeb haddaad facebook ka daawanayso sii sheergare muuqaalka laygare fogee muuqaalka meel fog gaarsii waayo arrinka dad badan baa weyna taagaya waayahay bal daawada qabiilka faqashini halkay ka istaageen dagaalka dagaal beesha ay aracdeeyo degan ama maaragtay dadka faqashiniga la yiraahdo ay ama habardiirta faqashiniga cayrka la yiraahdo ay ku jiraan oo maanta soo ka socda ma jiro suudaanka waa horta wax aad loogu xumaado asagana baal madow u ah ceeb iyo foolxumada ku ah in maanta la arko suldaan umadeed oo garwadanka ah dagaal looga soo horjeedo dowladdii dhulkan iyo deegaankan ka talinaysa Soomaaliland gudoomiyaha jaaliyadda gudoomiyaha jaaliyadda hadda hadalkiisa aynu bilaabaynaa oo isla daawanaa maadaama intaas intoradii hore ahayd ama loogadii hore ama warbixii oo la isku soo duuduubay ahayd bal hadda aynu hadalkiisa raashi ka bixino eegno deegaanka ari caddeeye ee qaaradda Yurub Siciid Cali Faarax ayaa si toos ah khadka telefoonka horyaal ugu jira Siciid ugu horeyn horyaal TV ku soo dhawow bal sidee buu idin sameeyay dagaalka ka socda magaalada Laascaanood waa ku dhawaa marka hore telefishinka horyaal TV aad baan u salaama maamulka iyo madaxda TV-gaba haddaan shaqadan wanaagsan ummadda Soomaaliyeedna ummadda Soomaaliland dhammaan waa salaamay meel ku joogaan kuwa Soomaaliyeedba haddii aan ka jawaabo maaragtay su'aashaasi waxa weeye waa dareemi kartaa meel la mar colaadi ka dhacdo nabad haysatay waxa weeye dhibaato badan bay sababaysaa qax iyo barakac iyo cabsi badan dadkiina waa dareemi kartaa xilligan oo lagu jiray xilli maaragtay dadku abaara ka soo kabanayeen oo meelaha qaar roob ka da'ay oo noloshii rabin dib loo cusboonaysiiyo inay hadda noqotay xaalad maaragtay colaad iyo wallahi dee aad bay dadka ehelka iyo qaraabada iyo maaragtay dadka deegaanka iyo gobolka u saameysay xaaladaas in badan waxaa ugu horreyn waxa inoo sheegay dagaalkaasi faqashini sida uu saameeyey horta saameynta uu dagaalkaasi Somaliland iyo Soomaaliya oo dhan ku keenay marka laga reebo reesool dagaalkaasi si ba'an buu u saameeyey waana meesha uu dagaal ku dhacayo dee Soolla dee reere badan baa wada dega marka wuu kala siman yahay qabiilada Sool dega sida ay magaranaysaa dhibaatadu u saameysay ninka faqashini sida ay magaranaysaa dhibaato walaadi waxay leedahay wayna haddii wax saameyso wayna saameysay buu yidhi kulli waana dad reermi iyo dee u badan iyo dad noocaas marka noqoto Sool caasimada mooyaane diiwaamiyadeeda marka khasab way saameynaysaa dadka deegaanka ari caddeeye qayb ayay ka yihiin dagaalka ka socda magaalada Laascaanood bar arrintaasi maxaad la socotaa Siciid waayda horta waxaa jirta been faaftay oo maaragtay bulshada iyo baraha bulshada la geliyay oo dadka laga dhaadhiciyo oo ah in maaragtay dadka reer ari caddeeye ay dagaalka ka socda gobolka Sool qaasatan magaaladiisa Laascaanood ay qayb ka yihiin horta ma jirto waxaan rabaa in bulshada Soomaaliyeed ee soo qaasta reer Somaliland u caddeeyo dagaal beesha ay ari caddeeye degan ama maaragtay dadka faqashiniga la yiraahdo ay ama habardiirta faqashiniga cayrka la yiraahdo ay ku jiraan oo maanta soo ka socda ma jiro laakiin waa jira shakhsiyaad yar oo magacii qabiilka iyo dadkii wato oo meelaha qaar maaragtay ka soo muuqday waa wax dhici karo laakiin ma jirto meel qabiilkan isugu yimid ama cuqaasha iyo saldanada iyo suldaamada isugu yimaadeen ay yiraahdeen dagaalkan Sool ka socdaan qayb ka nahay waa been faafta arrintaas waa ninkaasi sida uu inoo sheegayay qabiilka faqashini la yiraahdo
ee sool wax ka degaa dagaalka haba yaraatee waxay saameyn oo ku keenayaa saameyn marka ay ku jiraan iyo meel ay kaga jiraan ma jirto foqoshini dagaalka laascaanood ka socda ma inta ciidanka somaliland ku jirta ee dee dadka garanaysaa maadaama oo hadda dee ay meesha dowlada ka dhisantay ma dadka ciidanka oo ay dee xataa guddoomiyaal leeyihiin oo ay xataa ma garanaysaa xildhibaano leeyihiin oo dee dowladda somaliland ka mid yihiin ma intaa laakiin ma intaas dee dowladnimada ku jirta mise inta shacabka ee reer foqoshini ee degan halkaas ee sida imka sool oo kale intoodii dowladda haydna ay dowladda u jiraan dad shacabka ka mid a qaarkood ay dagaalamayaan marka reerka la idhaha foqoshini dagaalka somaliland haba yaraatee wax uu ugu jiraa ama shacabka halkaa degan ari caddeeye qabiilka foqoshini somaliland wax dagaala kulama jiro waxa weeyaan qayb ka mid ah somaliland weliba isaga inoo sii wadi doona arrintaan raba ee maanta inaan bulshada u caddeeyo ma jiro labaatanba wax ka dhexeeya somaliland iyo beesha foqoshini oo dagaala oo gobolkan sool ka socdo somaliland beesha foqoshini ee reer cali caddeeye waxay ka mid yihiin dadkan somaliland dowladooda waa somaliland maamulkooda waa somaliland dowladnimadooda iyo maamulkoodana somaliland bay ku tiirsan yihiin halkan ari caddeeye magaalada ari caddeeyena maanta waxaa ka taliyo nidaamkii somaliland oo ay ku matalaan xubno ka tirsan dadka deegaanka ee ahlubeydka ee magaalada degan marka arrinkan waa arrin beena oo faaftay oo qolyaha maaragtay huwanta iyo argagixisada kusoo duulay maaragtay goboladan bariga iyo laasacaanood ay qayb ka yihiin ay faafinayaan laakiin ma jirto arrin ah laasacaanood maanta waxaa joogo oo ka dirirayo oo ka dagaalamayo maaragtay saraakiil ama ciidan ama rag ka tirsan beesha foqoshini arrinkaas wax ka jira maaha waana beefaad siciidow haddii aad ninkaas hadalkiisa waxaanu ka soo qaadanaa ninkaa guddoomiyaha hadalkiisa waxaad ka soo qaadataan oo aad u sheer garaysaan oo aad u fogeysaan muuqaalkan in aan qabiilka foqoshini la idhaa inta shacabka maadaama ay meesha dowladi ka jirto ay dee ciidanka ka buuxaan foqoshini oo ay askari yihiin inta ciidanka marka laga tago wax shacaba oo dagaalamaya oo dhankaa ka dagaalamaya ama wax foqoshini gaadhay inaanay jirin haba yaraatee sidoo kale maalmo dhexe waxaa la wareejinayey waxaa la lahaa inaan foqoshini wax ku dhaanaari caddeeye ku dhaawacmantay waxaasi waxba kama jiraan foqoshini sidaa ay guddoomiyaheedu noo sheegay waa qabiil ka mid ah qabiilada somaliland dega sidoo kale arrinkaas saameyn sidee yar sameynaya horta xaaladii laasacaanood aan idinka yar warramo laasacaanood way foolanaysaa bahashu afku baana ka bixin saacadaha soo socda isla maantaba 24 saacadood soo socda ama 12 saacadood soo socda bahashaas waa dhacaysaa sida ugu dhaqsaa badan bay u dhacaysaa horta qabiilka foqoshini aynu halkaa maanta qof kastoo xataa hawiye haddaad tahay waad maanta qabiil ahaan foqoshini aad u danaynayso qabiilka foqoshini dagaalkaa kuma jiraan haba yaraatee foqoshini colaadaasi saameyn mayso sidaas ogaada cidna cadow ma aha waayahay laasacaanood horta iyadu way foolanaysaa dagaalkeedan bal aynu horta sii yar iyadana magarasa wax ka sii yar taataaban maadaama awoodii soo kordheen horta dagaalkani laba weji buu leeyahay dagaalkan dadkan meesha laasacaanood isugu yimi iyo somaliland oo keliya tima dagaalamayaan dagaalku wuu ballaaranayaa waanu weynaanayaa dagaalkaasi meeshaasna kalaasika haddaad maqli jirtay ciyaar kalaasikaaba soo dhacaysa ama barcelona iyo real baa wada ciyaaray haddaad maqli jirtay dagaalkaas waa noocaas oo kale haddaba wejigiisa koowaad ee dadkan aad arkaysa magaalada kusoo gelaya ee qabiilada majeerteen u dambeeyeen ee soo galay magaalada iyo somaliland markay islaayaan maaha kalaasiko aniga shakhsi ahaan dadka aaminsan baan ahay iska daa kala badh ciidanka somaliland ee sool jooga 30% ayaa ku filan dadka isa soo urursaday oo dhanba gebigooda dhanba laakiin dagaalkan wax uu dhex mari doonaa si toos ah markuu bahalku qarxo puntland iyo somaliland baa loo kala bixi doonaa waana noocaas waxaana kuu cadaynaysa sansaanta ninkan hadlaya kuu cadaynaysa ninkani waa ninka sool ka dega 20% ka dega haddaad sool maqasho 20% buu ka degaa isaaqa kalena 25% bay sool ka degaan halkaa maxaad arkaa 45% macnaha waxaan SSC la dhoodhoobaya waxaad arkaysaa horta SSC daan suuqin yar dhufto in yar aan maanta wax yar ka taataabto SSC horta waa sool sanaagi cayn sool waa meesha dhibaatada ka socoto sanaag haba yaraatee wax dhibaato iyo wax
ACC oo lagu hadal hayaa ma jirto haba yaraatee malaha ACC ta kalena waxa weeye waa Buuhoodlena waa degmo ka tirsan Togdheer marka horta arrinku waa sidaas laakiin dadku waxay isku raacaan qadiyad laakiin qabiil isku ma raacaan siyaasaddu hal mar bay isbedeli kartaa isaaqa dega sool waxa baalkii sheeg qabiilka foqoshiniga dega baanta dega qadiyadoodu way midoobi karaan oo wax way la bixi karaan waxaan adduunka qadiyad baa la isku raacaa qolo la isku ma raaco wax kasta waana siyaasad ma garateen marka laakiin hadda sool boqolkiiba markaan reality-ga eegno ilaa maadaama anaga meeshan dhex ka nahay boqolkiiba iska daa ACC labada waxa kale ka tag sool Soomaha meesha dhibaato ka socotaa boqolkiiba 75 dadka jooga Soomaaliland ma taabacsan sida hadda aan aragno aniga waliba kuma qiimeeyo qabiil iyo aftirsin oo isaaqa sool ku nool ma oranayo khasbi Soomaaliland ku ma oranayo waayo dadka iskuma raacaan qabiil sida ay reer sool Soomaaliland iyo dawladooda ay u taageereen ayaan dadkoon oranahayn sool ana saas ma garanaysa bahash u qabyaaladeen marka hadda bahashu sidaan gudoomiyahan xataa ka arkayno boqolkiiba 75 waxaad arkaysaa inay sool Soomaaliland iska daa waxa ACC-da kale isaga tago oo ACC-da kale dhamaan aan la isla wada garanayo iska daayo intaas oo kaliya ee sool ka maanta dagaal ku jira boqolkiiba 75 Soomaaliland marka dagaalkina halkaas u maraya bahashu afkuun baan ka bixin marka ay dhacdana insha Allah waynu arki doonaa laakiin dagaalkaas wuu weynaan doonaa waanu jiitami doonaa kalaasikaanu noqon doonaa waana lagu kala bixi doonaa muuqaalka intaas iska joojinaya sii share gare like gare commentigan insha Allah wixii reegaaga hadii Ilaahay awood la yiraahdo ku reeb